nin indhoole ahaa ayaa subax walba waxa uu fariisan jiray magaalada bartamaheeda isagoo ay hortiisa taalo warqad ay ku qoran tahay waxaan ahay nin indhoole ah ee ii kaalmeeya. waxa uu heli jiray inta ugu badan xoogaa yar oo lacaga oo uu ku ururin jiray koofiyad uu hortiisa dhigan jiray. maalin isagoo meeshiisii fadhiya ayaa waxaa soo agmaray nin aqoon-yahan ah. lacag yar oo uu hayay ayuu ku riday koofiyadii hortaalay ninkii indhoolka ahaa. dabadeedna waxa uu soo qaaday warqadii isaga oo qoraalkii warqada ku qornaa ka bedelay wuuna iskaga tagay goobta. in yar kadib dadkii wadada marayay ayaa bilaabay inay wixii lacaga ay hayaan ay ku ridaan koofiyada hortaala ninkan odayga ah. ninkii indhoolaha ahaa ayaa la yaabay lacagta faraha badan ee uu maanta helay, wuxuuna isagu dareemay in ay wax isbedeleen. qof ka mid ah dadkii meeshii marayay ayuu ka dalbaday inuu u akhriyo waxa ku qoran warqada hortaala. warqadana waxaa ku qornayd waxaan ku jirnaa xilligii guga, dhulkuna wuxuu noqday mid qurxoon oo ubaxyadii meel walba ay qariyeen, laakiin anigu ma arki karo quruxdaas. duruucda sheekadan waxa ay tahay haddii arrin adigu aad ku guuldaraysato dhinac kaleeto aad uga wareegato ayaa talaysaa. ha ka niyad jabin, waxaa jira qaabab kaleeto adigu aad ku guulaysan karto marka dhaqankaaga aad wax ka bedesho. subscribe dheh channelka Rijaalul Janna si aad noogu garab istaagto nooguna dhiirigeliso inaan soo bandhigno qisooyin kale oo xiiso leh.